عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waxaa la yidhahaa Naciima Salaad Madiine Xuseen gabadha la dilay Toto Salaad walaashay waaye dad badana markino oo YouTube iyo Facebook ka hadlayaan waxaan dhahi lahaa waxa idinka hubanin iska hadlina dambi ay idin soo raaci karaa markino ilaahay laga baqo yaa waxyaala adiga hubanin asoo gelinin adi xataa walaashaada adal qof dili lahaa oo maanta inta fadhiyo sidii oo dad u shactireynayo oo kale oo dad ma arkino followers u raadinayo oo kale guri aan ka dhigto oo inta fadhiyo oo walaalaha aan ka hadli lahaa hilibkaaga dhaqaaqi lahaa waxaan maanta idinu soo jawaabnayna oo in kale aan idinu soo jawaabina waxa tahay we are busy family-geena anaka oo dhan oo walaasheena oo quruxda badan oo xidiga gurigeena tahay oo indhaheena iyo wadnaheena noo tahay wayne maadaama sa time-ka idinu qaadan wayne oo inaan inta fadhiisano aan iska dadalan laakiin maanta hadaa idinka qof ashahaadanaysiin hadaa tihiin waxaan kali aan idinka codsanayna waxaa waaye inaa oo nala raadisin oo ninkaaseeto oo meelahaas wareegayo oo weli oo facebookiis isticmaalayo telefoonkiis isticmaalayo walaashaydii gaarigeeda oo gadatay oo dhididkeeda ku gadatay oo la wareegayo oo wadna lahayn oo maskaxad lahayn oo ilaahay oo garanaynin oo weli telefoonkeeda intuu annaka oo waxyaalahan dhehno naga fiirsado sidii oo markano movie oo daawanayo kale oo na daawanayo kaas ina oo nala qabatin oo nala faafisin ya adduunka meesha idinka joogtiin oo dhan noo faafisin aan jeclaan lahayn walaasheena maanta anaka kelima naga dhimanin ummadda dhan ka dhimatay ummadda Soomaali oo dhan ka dhimatay adduunka dhan ka dhimatay walaashaydii qof fiican ahayd qof dad jecel ahayd qof diin jecel ahayd qof oo miskiin iyo kabiir iyo qof weyn iyo yar kala ilaalsanaynin ahayd walaashaydii maanta adaa qof oo wax ka weydiisanayso ahayd oo ku diideynin wallahi adaa wax ka weydiisato oo gacantaada oo eber ma ku celinayso walaashay qof saas oo kale ahayd laakiin waxaan ka codsanayaa walaalaheed oo meeshaas oo inta fadhiyoon oo been sheegayo oo dhahayo gabadha waa la jarjaray gabadha habada lagu dhuftay mindiya lagu dhuftay oo dhahayo ilaahay qafuurur rahiim ku jeedo oo qofka dhahayo walaasheeda yar aan la hadalnay walaasheeda oo na soo wacda information na siisay ya ana family-ga ugu yar qofka family-ga oo inta joogo ugu yar aniga waay ya anigana qofkan waay ma jiro welina xadinta walaashaydii aan ka naxe weli markino aan ku jira I think inahaygi waa ka dareensantihiin ya soo qofaan soo wacnay ma jiro qofaan la xiriirno oo information siinay ma jiro anaka bateena u ogeen information sidii yahay ya soo beenta alla joojiyo hadday idinka ilaahay ka baqaysin nala raadiya ninkaneeto nala soo qabta dadka oo maanta qarinayo oo cuntada siinayo oo biyo siinayo oo jiifka xariirta isaga u jiifinayana dadkaas waxaan u dhahay allaha idinka abuurtay allaha idin abuurtay oo sabca samaawaad joogo ya allaga baqo ninkaas noo soo saara Abdicasiis Maxamed Keero konton jir u jiraa 50 years old ya walaashay oo qaali uu dilay oo ilmaheeda u korisay ya ilmahiisa u korisay Leila oo jirto 13 iyo Bashiir u korisay diinta bartay dhar u gaday dahab u xirtay ya kastuma u xirtay timaha u jilaacisay ya ilmaheeda oo kale ka dhigtay oo hoos gashatay oo xambaartay oo cunto siisay oo jiif markan xariira u dhigtay oo maanta gacantiisa ku dilay
xishmadiisa oo dhan intaas le waay adiga oo maanta qarinayso cunto siinayso taasa ku dambaysaa wallahi walaala kula dhashay gabara kula dhalatay ya hooya ku dhashay ya qofka saan loo galayna waa gabar Soomaali ya gabar Soomaali hadda walaashay oo hore noo dhalin wallahi ilmaheena oo dhan annaka dhalnay dib la'aan u dhashay oo sidii iyada xanaaniso wallahi annaka oo dhalnay ma xanaanino ya ilaahay ka baqa ilaahay iyo rasuulka ka baqa ya noo soo qabta ilaa Afrika noo faafiya Abdiaziz Maxamed Keero nala raadiya dadka caawinaya nala raadiya ya please waan idin barina iyo beentana naga daaya please xanuunka iyo beerkana xanuunaya ya aragtideen oo walaasheena oo aragne oo dhimatay oo siriirta isaga ku jiifiye oo ka tagay iyada meed ah ya taasa naxdintaas hadda ka soo noqon wayna anaka please wax oo kali idinka nagu caawin kartiin waxa waaye duco ya iyo fiidiyaasheeda oo orooska ku ciyaarayso iyo waxyaalahaas oo idinka soo gelinayseen ilaahay aan idinu barina please ka dhaafa don't share her video please do not share her video stop lying fear Allah subhanahu wa ta'ala we are all crying and mourning we're not even done yet we didn't even find her killer somebody is hiding somebody is feeding him yeah please and please fear God if you guys want to help the family and pass the news around please say let's find Abdiaziz justice for Toto justice for Muna Kuri justice for Toto Salat please justice for my beautiful sister